بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. horta marka koobaad ilaahay baa mahad leh mar labaadna waxaan aad ugu faraxsanahay maanta oo Arbaca 22kii bishii afraad 2020 inaan ku suganahay fikta sare ee buurta Awrdil waa buur aad u dheer fogaan ahaan markaad eegtana magaalada aad uga fog aad baan ugu faraxsanahay buurtan inaan mar labaad imaado sababtoo ah waqtigan maanta joogay waa markii koobaad qof walba oo jecel inuu magaalada iskaga baxo waqtiyada noocan waxaan kula talin lahaa inuu tago buuraha waxaad ka helaysaa jimicsi waxaad ka helaysaa farxad waxaad ka helaysaa niyad samaan waxaad ka helaysaa waayo aragnimo mar kasta waxa adiga noloshaada dhisi karay weyntaada aaminsan tahay noloshaadu inay dhismi karto ma jiro xoogag adiga dibadda kaaga imanaya say u dhaqaajiyaan noloshaada uguna dhaqaajiyaan inay guulaysato mar walba waxa guushaada ku dhaqaajinaya noloshaada dhaqaajinaya waxa uu yahay oo waxa adiga gudahaaga ku jira internal forces waxa la yiraahdo xoogag gudeed ba mar walba ka dambeeyay in qofka uu isbedel weyn noloshiisa ku yimaado haddii aad rabto isbedel dhameystiran waa in marka hore adigu aad fiirisaa maxaa ka khaldan waana dib isku noqotaa waana isla fadhiisataa waana isweydiin karto waxyaabaha adiga ka khaldan beeska iyo meeshaad wax ka soo saxaysana way isweydiintaad isweydiinayso waxyaabaha adiga ka khaldan markaad adigu soo saxdo waxyaabaha ka khaldan waxaad sixi kartaa oo u gudbaysaa inaad saxdo inta adiga kugu hareeraysan ee xaafadda inta markaad bedesho ee awood u yeelato inaad bedesho waxaad u gudbaysaa inta jaarka saad u sii socota aakhirka waxaad noqon kartaa qof dunida wax ka bedeli kara laakiin adiguna naftaada bedelin aad bay u adkaanaysaa inaad isu daydo inaad dunida wax ka bedesho dunida waxa wax ka bedela qof naftiisa wax ka bedela inaynu nafeena wax ka bedelayna waxay noqonaysaa inaynu nagu isbaran oo inuu ogaano cidaynu nahay markastoo inuu ogaano cidaynu nahay waxay noo saamaxaysaa inaynu si fudud u qabsan karno waxyaabaha aynu rabno inaynu noqono hawlaheena waxay naga hor joogay waa garasho la'aan iyo aqoon la'aan inaga haysata waxaynu ku wanaagsannahay iyo waxay fiicnaan lahayd inaynu qabano haddaynu intaas awoodno oo aynu qabanno waynu guulaysanaynaa xanuun kasta oo nolosha ku soo marayna wuxuu kuu hogaamiyay inaad guulaysato aynu ku adeegno dhib kasta oo aynu soo wajaha si aynu ugu guulaysanno caqabadaha ina haysta ugana gudubno ugana talowno waynu guulaysanaynaa intaynu aaminsanahay inaynu guulaysanahay mar kasta shidaalka aynu haysanno aynu ku dhaqaaqaynay waa aaminaadaynu waynu nafteena ka qabno iyo intaynu nagu aaminsanahay inaynu wax qabsan karno haddii aynu rabno inaynu wax qabsanno waynu marka hore aaminaa inaynu wax qabsan karno waxaan ku rajo weynahay qof kastaay inuu aamini karo noloshiisa inay isaga gacmihiisa ku xidhantahay aanay cid kale ku xidhnayn mar walbana aynu ilaahay tala saaro sababta waxa dunida laynoo keenay laynoo abuuray wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bilaahi intaas hadaynu sideeda uga fulin waxay noo fududaanaysaa wax kastoo inuu noo shaqabaleen intaynu ka raadinayno farxadda iyo farxaddeena dadyo weynaga inagu hareeraysa waxa ka qurux badan farxaddeena inaynu ka raadino dhanka ilaahay iyo dhanka quraanka iyo dhanka inaga nafteena mar walba inaynu nafteena farxad siinay waxay ka wanaagsan tahay inaynu dadka kale isu taynayno farxad siino aynu nafteena farxad siino si ay dadka kale farxad inooga helaan mar kastoo aynu nafteena farxad siino waxaynu awood u yeelanaynaa inaynu dadka kale farxad siino faraxsanow mar kasta dhool cadee qosolka dheer ma fiicna laakiin dhool cadeynta wanaagsan geliso way adagtay in dadku danaad afku raali gelisay laakiin ku raali geli niyad samaan saamax iyo cafis iyo mar walba inaanad wax warag waxyaabaha ay adiga ku farayaan wax walba bulshada kaaga yimaado waa inaad uga fikirtaa dhanka togan waan idin soo dhaweynaya waanan jeclahay inaad safarro noocan baxdaan si aad waayaha iyo waxyaabaha adiga ka dahsoonad u aragto sababtoo maanta waxa ii muuqato waxaan awal arki jiray salaam على برسالتي jawaab horta niyow de maanta buur baan soo fuulnay dad yar oo qaali waqti waan soo wada qaadanay niyow de horta wada arkayso ni buurtan ku soo rafaadnay soo fuulitaankeeda reernaga mida way ku feen boorka iska soo jafeen way soo kaceen aakhirkii fikti way soo gaadheen waxay kala kulmeen de leyd yar oo qabow raaxo badan fadhi yar oo macaan geed hoostay ku raaxaysteen niyow nolosheena maxaa de tusaale noqon karaan ku dabaqi karnaa hawsha maanta waxaynu ugu dabaqi karnaa hayaanka dheer ee waxbarasho aynu hayno waxay keenaysaa inaad u kacakufto sida markaad buurta soo fuulaysa aad u kacakufto laakiin aad dareentay markii buurtaad fikteeda timid inaad guulaysatay waxaad soo dhaaftay xanuun ahaana oo ahaa tallaabooyin ku soo gaarsiinaya soo koritaanka buurta mar kasta oo ay carqalada kaaga yimaadaan waxbarashada carqalada kaaga yimaadaan dunida inteeda kale ama bulshada inteeda kale
ood ku dhabar adeegtay waxay sababaysaa inaad guulaysato sida imika soo koritaanka iyo kaca qofkii aad buurta soo koraysay aad ugu dhabar adeegtay ay kuu saamaxday inaad buurta fikteedii sare iyo halkaad rabtay aad gaadho mar kastood meel sare rabto waynaad iska dhegatirtaa bulshadu waxaan yaryaray kugu soo tuurayaan iyo ereyada niyad jabkaa iyo kugu geysanayaan taasaan isleehay waad ku guulaysan kartaa waana nolosha yacni dhulka ugu fiican ee tusaale ahaan loo soo qaadan karo buurta aynu soo kornay cashiro badan oo nolosha ka mid ayna bartay cashirada ayna bartay haddii aynu ku dabaqno kuweena caadiga ee bulshada aynu ku dhex noolnahay waxaynu ognahay inaynu guulaysan karno dhammaantiin waynu guulaysan karnaa aynu aaminay inaynu guulaysanayno